kulankani oo ahaa mid looga hadlayay sidii looga wada shaqayn lahaa amniga degmada Guriceel iyo deegaanada hoos yimaada sidoo kalena loo dhiirigelin lahaa ciidamada kala duwan ee ka howlgala degmada Guriceel ayaa u dhaxeeyay maamulka degmada Guriceel gudoonka xaafadaha degmada iyo ururka haweenka degmada Guriceel kulankani oo ka qabsoomay xarunta danta guud ee degmada Guriceel ayaa waxa talooyin haboon ku wadaagay maamulka iyo bulshada markii uu soo idlaaday kulankan oo muddo dheer qaatay ayaa waxa warbaahinta shir jaraa'id u qabtay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Guriceel Cabdirasaaq Cabdullaahi Faarax waxaana uu sheegay in amniga si wada jir ah looga wada shaqayn doono. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maanta way taariikhdu tahay 27 bisha 7 2022 waxa xarunta degmada ka qabsoomay shir ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmada. Shirkaas oo looga gol lahay abaabulka guud ahaan ee maamulka degmada iyo dadka degan degmada Guriceel ay ugu abaabulan yihiin ka hortagga dhammaan waxyaalaha ka soo cusbaanada degmada sida la socotaan deegaanka waxa ka soo cusbaanada xaalado amni oo ah in qolyaha nabadgelyada shabaabku ay inta badan qalqal geliyeen amniga deegaanada ku hareeraysan degmada dadkii ka soo qayb gala kulankan oo ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada waxay muujiyeen sida ay ugu diyaarsan yihiin inay ka hortagaan wax walba sida ay ugu dhiiran yihiin inay ka hortagaan wax walba oo caqabad ku noqonaya amniga guud ee degmada waxay muujiyeen dhabar adeeg iyo in ay yihiin dadkii horeyba uga xoreeyay degmadan qolyihii hore ee sidaan oo kala soo maray guud ahaan bulshada reer Guriceel waxay u diyaarsan tahay inay ka hortagto wax walba oo qalqal gelinaya amniga guud ee degmada iyo guud ahaan galmudug intaba waxa la isku baraarujiyay in dadka deegaanka iyo maamulku iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay qayb ka noqdaan howlgallada ciidamada amnigu ay ku xaqiijinayaan amniga taasoo la rabo in ciidamada garab lagu siiyo sidii u suuli lahaayeen wax walba oo ka hor imaanaya amniga degmada iyo guud ahaan amniga galmudug intaba dadka reer Guriceel xaqiiqatan waxay u diyaarsan yihiin inay ka qayb qaataan gulufka iyo dhammaan xoreynta deegaanada ka maqan galmudug iyo gaar ahaan degmada Guriceel waxaan kale oo dadka u sheegnay in ay iska ilaaliyaan wararka ku-tiriikuteenta ah ee meelaha laga la wareegayo xaqiiqatan sida wax badan ay u soo warinayaan dadka shacabka ah waxaan rabnaa inaan u sheegno inaysan waxba u jirin Guriceel waa amni deegaanada ku xeeran waa amni shabaabka iyo waxyaalaha argagixisada ah ee la leeyahay meel ay soo istaageen meel ay yimaadeen meel ayaa lagu arkayna intaas inay tahay guud ahaan wax been ah dadka deegaanka reer Guriceel waxay diyaar garow buuxa ugu jiraan inay ka hortagaan iska caabiyaan iska celiyaan kana guuleystaan qolo walba oo isku dayda in ay amnigooda iyo deegaanadooda intaba amni darro iyo qalqal ku soo kordhiso waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo kasoo qaybgalayaashii kulankaas dhammaantood muujiyay sida ay diyaar u yihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo culimada kelmadooda ku aadaneed in degmada ay dadka baraarujiyaan guud ahaan reer Guriceel waxay u diyaarsan yihiin inay amniga xaqiijiyaan inay iska celiyaan wax walba oo amni darro la yimaado waa maatantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maalmihii ugu dambeeyay waxaa jirtay hadallo leesla dhex marayay oo ah in ururka al-shabaab ay ku soo dhawaadeen degmada Guriceel iyo deegaano hoos yimaada waana mid sababtay in maanta maamulka degmada Guriceel uu isugu waco qaybaha kala duwan ee bulshada lagana wada hadlo sidii amniga degmada Guriceel iyo deegaanada hoos yimaada loo xoojin lahaa Cabdishakuur Salaad Dhoore warbaahinta qaranka Guriceel.